ها كعينت aad bay u adeegsadaan aan waxaan ku leeyahay dadka markaa meesha xanaya markaa la kicin erga kicin soo ma qof furdo ama meel jifaal hebel soo kac moogta ama hebel soo kac markaa dadkii waxa ka soo qaadayaan dad doqomo meel iska hurdo dadkaan ugu kicin weey laakiin waad ka timi waxaad qabatay shaqo umad duleedahay wasiir baad noqotay madax baad meel ka noqotay ummadda cashuurteeda waad ku shaqaysaa dadkii waxaan lahaaba wax ka sheegay haddana waad cariisan tusaa wax laga sheegay waa leeyahay shaqada iska xajishaa markaa masaajidkaaga iska tagtaa ayar iska cibaadaysataa laakiin meeshanaad soo doonato meel is dhaliilay sideed saacadood ma shaqeyso dowladdu sideed saacadood ma shaqeyso wasiiradu ma shaqeeyaan agaasimayaashu ma shaqeeyaan guddoomiyaha shaqaale ma shaqeeyaan guddoomiyaasha hay'aduhu baan lahayn ma shaqeeyaan shaqaaluhuna ma shaqeeyaan marka haddii xaggaa laga deyn badan baynu ku leenahay marka nahay cashuur bixiyayaasha way ugu dambeyn qoraal in badan dadka soo jiitay oo aad bartaada Facebook soo qortay oo ahaa tusaale ahaan in qofka ama wasiir dacweeyo ama tusaale ahaan CID-da looga yeedho aniga hayla soo xiriiro dad badan fikirkaa way soo dhaweeyeen bal ka waran qofkaas oo kale tusaale ahaan maxaad adigu qaban kartaa dareen niyo dowladda maad bagashido waxaad sheegaysid wax ka qabatay waa wax loo joog eeg laakiin ka soo qaad inaan galo yani adigu ma dowladda gashido waxaad soo qoraysaa waxaad leedahay waa khaldin maad wax ka qabatay waa logic laakiin eeg dowladda waxa weeye haddaan wasiirka hadda adigu dhaliishid ama warbaahinta wax ka sheegto dee isna hayaad waxa uu sheegay beenta xog ma jiraan afkiisa iskaga cisho laakiin aad dowladnimada iyo isticmaal inuu qofka ku caburiyo oo aad moosina xanjo meel ku wada dhigsan tahay oo qof walba oranay bil adiga tusaale shaqo laga heriya bil maxaa adiga ku fududeeyay in tusaale ahaan qof xora oo si xorriyad aad u hadli karto waan iska dhiibtaa marka ma garanayo sabab gaar ah laakiin waxaan qabaa inay dowladnimadu u wanaagsan tahay inay jirto challenge ka baxsan dowladda ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku falanqeyn doono xeerka shaqaalaha dowladda oo maadaama ay jiraan shaqaale badan oo u shaqeeya wasaaradaha dalka oo dhammaantood aan aqoon badan u lahayn xeerka shaqaalaha dowladda waxa barnaamijka igu martiya oo aan ka wareysan doonaa xeerka shaqaalaha dowladda garyaqaan guleed difaac oo ka mid ah garyaqaanada waaweyn ee Somaliland oonu in badan doonayna inaan halkan ku lafagurno su'aalaha ay isweydiinayaan shaqaalaha dowladda Somaliland si ay bal u ogaadaan garyaqaan marka hore waan ku soo dhaweynayaa bal ugu horeyn haddad annaga iyo daawadayaashaba xeerka shaqaalaha dowladda aad faahfaahin naga siiso Somaliland marka la eego laba xeer baa lagu maamulaa dadka ka shaqeeya midna waa shaqaalaha aan dowladda u shaqeyn ka lagu maamulo xeerka shaqaalaha rayidka waa la yiraahdaa dadka shirkadaha ganacsiga ururada maxalliga u shaqeeya uu maamula midna waa xeerka shaqaalaha dowladda wuxuu maamulaa dadka xukuumadda u shaqeeya shaqaalaha aanay ku jirin dadka la magacaabo ama qaabka siyaasiga ku yimaada ciidamada iyo arrimahaas aan la mid ahayn laakiin dadka rayidka ah civilianka ah ee dowladana shaqaalaha waa ayuu maamula way bal xeerka shaqaalaha dowladda oo kale marka la eegno Somaliland oo kale xeerkan ma yahay xeer si fiican ay u isticmaalaan laamaha kala duwan ee dowladdu xeerka dhawaan baa la sameeyay markii hore isagoo jiri jiray waagi cigaalba isagoo qaab digreeta loo soo saaray baa lagu shaqeyn jiray laakiin 2020 baa dib loo casriyeeyay la ansixiyay dabcan wuxuu dhigaya waxyaabo fara badan oo asaasi ah oo la xiriira xuquuqda dadka shaqaalaha leeyihiin qaabka ay ku yimanayaan marka horeba shaqaalaha wuxuuna asaasiya hay'adda loo yaqaan hay'adda shaqaalaha oo qaabilsan inay shaqaalaha dowladda kormeerto wixii xuquuqaadkoodana ay sugto isla markaana iyadu shaqaale ay siiso laakiin qaabka dabeecad ahaan Somaliland u shaqeyso inta badan marka horeba way yartahay in xeerka lagu shaqeeyo waxay ka bilaabantaa qaabka loo shaqaaleysiiyo shaqaalaha dowladda marka horeba ahayn qaab maaragtay waafaqsan habraaca xeerka oo tirada shaqaaluhu hadda aragtid kor bay u kacdaa tirada la xayeysiiyo ee la yaqaano in soo imtixaan loo galay iyo tirada dhowrkii sanaba la sheegay in shaqaalaha dowladda yihiin aad bay u kala badan yihiin marka processkii ama habraacii xeerku sheegayna looma raaco marka dambena maamulkooda waxyaabo fara badan oo ka cawdaan baa jira waxyaabo badan shaqaalaha laga cawdaana way jiraan maadaama hay'adaha dowladdu ay office staff yihiin oo dadka ka shaqeeya iyo shaqada taala ay aad u kala fara badan yihiin macnaheedu yahay inaan dadka oo dhan wada shaqeynin qaar ay shaqeeyaan qaar aanay shaqeynin way waxa jira su'aalo badan oo isweydiin mudan marka xeerkan la joogo oo dad badan ay qabaan doonayaan in laga jaahil saaro kale waxa jira waxa ugu horeeya su'aalaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay in dumarkii oo kale marka tusaale ahaan ama ay umusha noqoto ama ay doonayso fasax oo kale in ama shaqadiiba laga eriyo ama mushaharkii laga gooyo gunnadii marka bal ka waran hooyada tusaale ahaan umusha dowladdiina u shaqeynayso kale haweenka shaqaalaha waxay leeyihiin labada xeerba waxay leeyihiin fasaxa dhalmada waa xeer asaasi ah laakiin marka laga hadlayo xagga eriga Somaliland shaqaalaha erigoodu ma sahlana shaqaalaha dowladdu dadka mas'uuliyiinta ah meel ka shaqeeya farsamooyinka la isticmaalaa markay doonayaan dadka inay maaragtay cadadiyaan oo waxa Somaliland kala duwan مثلا
mushaharku wuxuu ku cayiman yahay darajada shaqadaadu a b c d saasaa loo xisaabiya ayay ku cayiman yahay laakiin waxaa jira gunooyin dhowra oo qofku xilka uu hayo meeshuu joogay waxaa la tacaamula kuwaasi shaqaaluhuna kuwa ma wada heli karaan waxay helayaan kuwa xilalka la siiyo marka taasay ku kala xuquuq bataan inta badan shaqaaluhu qofka meesha doonaya markuu doonayo cidna asnuujiyana halkaasuu dadka geeya markaanu doonayna taasuu dadka ka qaada halkaas inta badan iska dhibaatadu ka timaada laakiin qofka mas-uulka inuu yidhaahdo qof shaqaale waan kaa eriyey shaqaalaha waan kaa saaray shaqo sahlan maaha sababtaa waxay u baahan tahay in hay-adda shaqaaluhu ay ansixiso wadadaa dheer uu maro marka haddayse jirto cid haween ka cabanaysa in fasaxeedii loo diiday ama inay fasaxeedii qaadataa uu sababay in cadaadis la saaro marka xeerka loo eego waxaa u furan ee uga cabato hay-adda shaqaaluhu dabeedna iyadaa u xilsaaran in haddii taasi dhacdo inay wax ka qabato waxaana marar fara badan dadka shaqaalahoo kale shayidka ahi hadda markay ka cabanayaan qofkii u shaqaynayay maalan inta badan marka la eriyo kale way dacwoodaan oo dadku way barteen in laga dacwoodo qaybaha gaarka loo leeyahay ganacsatada siba enjoyada inta badan laakiin dadkiinu aad uma oga inay ka dacwoon karaan wasaaradaha laftigooda waxaa laga yaabaa qofku markuu cabasho ka qabo ama isagoo qofka tv-ga ka hadlaya ad arkaysaa ama qofkii iska tegaya ama wax lamida laakiin haddii aad hay-ad shaqaalaha loogu cawdo waxaa laga yaabaa in iyaguna si fiican u bartaan arrimohuna ay kala caddaadaan way iminka waxaa jira tusaale ahaan shaqaalaha dowladda laba qof oo ka wada shaqeynaya cilmiga ama xagga shahaadooyinkii oo kale ama cilmigii oo kale waa isku darajaba tusaale ahaan darajadii a iyo b c lagu kala qaybinaya shaqaalaha dowladda waa isku mid haddana way kala mushaahar badan yihiin mid baa mushaahar badan kan kalena mushaharkiisa hooseeya maxaa sababaya saas oo kale waa gunooyinkay kala leeyihiin mushaharku waa fixture isagu inta badan cidda meel ka wada shaqeysa wasaaradaha ku kala mushaahar badan dabcan hadda matalan wasaaradda maaliyadda kale way ka mushaahar badan tahay wasaaradaha kale laakiin waxay aada ugu kala duwan yihiin waxa weeye gunooyinkan faraha badan ee magacyada kala duwan leh qofka matalan haddii agaasim waaxeed loo magacaabo ama uu unug haysto ama qayb haysto waxbaa la socda xilkaa loo dhiibay oo mushaharkiisii dheeraad ku ah haddii laga qaadona wuu ka hooseynaya waana ta keentay inta badan in xilalkaa yar la magacaabayo dadku wada doonaan inay qabtaan mana yaalo nidaam sugan oo cad oo qofkani ku dallici karo hadduu shaqaalo ahaa muddadaas aqoontiisa intaa gaarsiisan tahay gaari karo agaasima waaxeed ama qayb ama unug ee wasiirka ama qofka madaxda ka ah wasaaradda ama qaybtaas hay-adda xukuumadda ayaa dadka magacaabaya odiga hadda arkay sidii dee golihii xukuumadda tahay golihii wasiirada hadba facebooka ku arkaysaa waraaq qordi soo dikreta oo wasiir leeyahay isku shaandhayn baan ku sameeyay agaasimayaasheedii oo waxaasoo dhan iska maamul xuma ma ogtahay iyo farsamo xumo aada u weyn dadkani waa shaqaale dowladeed uma baahna in lagu baahiyo maaragtay facebook hadda waxaa laga yaabaa inaad Ethiopia arag ama Mareykan ama Ingiriis maalin walba wasaaradaha dadka ka shaqeeya ee la kala magacaabo ridiculous laakiin dhaqan bay noqotay tii waxay keenaysaa tartan inay abuurto oo qofkii shaqo agaasim waxeed baa laga dhigayaa qof kale meeshiisa gureynaya wuxuu soranaya sidii mushaharkaaga yar inta yar kugu kordhaadna campaign iyo olol u gelaya deedna waa laga qaaday marka loo magacaabaya wasiir baa imanaya agaasimayaashii shaqada la qabsado si fiican u shaqeynayay isagu imanaya uu kala eedaya oo cusub uu magacaabay because sidii madaxweyne yahay golaha xukuumadda dhisay soo kale soo arka haddana qabiil baa lagu saleynaya waxa la oranayaa intaasoo agaasimo walba hala siiyo reer hebel marka way qasan tahay taasi ma aha kaliya xagga xuquuqda kala badanaysa mushaaraadka la xiriiray gunooyinka laakiin se wasaaradaheena iyo hay'adaheena ayaa waxay u salaysan yihiin qaab chaos ama qasan oo aan ahayn qaabkii shaqaalanimada because civil service waxa loogu talagalay aragti ahaan shaqaalaha dawladdu laba shay oo muhiim ah jira loogu talagalay koow inay siyaasadda ka madax bannaanaadaan siyaasadduna inaanay saameynin macnaheedu waxa xukuumadaha isbedelaya wasiirada isbedelaya looguma talagelin inay saameeyaan dadka shaqaalaha iyagu waa xafiis taagan oo permanent oo cid walba ugu imanayso la rabo inuu shaqada wadi karo xitaa haddii golaha wasiirada oo dhan maanta wax ku yimaadaan madaxweynuhu wada eriyo waa inay jirtaa shaqaale dawladeed oo dalka waran gareyn kara maamuli kara laakiin hadda inaga qaabkii u socontay taasi suurtagal ma noqonayso because shaqaalaheena dawladeed waxay ku xidhan yihiin siyaasaddii bay ku xidhan yihiin xisbinimadii bay ku xidhan yihiin ololihii xisbidii ka qaybgelayaan xisbiga hadba talada haya bay la ololeynayaan oo shaqeynayaan oo difaacayaan ka soo horjeedo lagu dareemo inuu macaaridka yahay ciqaab baa ku dhacaysa marka maaha ma sugna waana qayb ka mid ah dhibaatooyinkan haysta taas iyo qaabka loo shaqaalaysiiyo iyo tirada faraha badan ee shaqaalaha dawladdu yihiin saddexdaas waa saddex mas'alo u baahan in mustaqbalka si uu maaro loogu helo way iyaga laftooda shaqaalaha dawladdu haddii ay ku milmaan siyaasadda tusaale ahaan ama ay siyaasaddii ka qayb qaataan ama ololeeyaanba ama agaasimo ha ahaado ama agaasimo waaxeed ha ahaado
muxuu noqonayaa qaabkoodii oo kale إذا shaqada ka tago mid kamid ah sababaha shaqada lagu waayay kara kamid tahay hadduu siyaasadda galo laakiin dhibta jirta waa maxay hadduu mucaaradka galo waa laga qaadaa tallaabada waad arkaysaa qof mucaarad u ololeeya ama raacayo xilkii laga eriyay shaqadii laakiin mid arkaysid matalan mid xukuumaddii la socdo oo hadda kulmiyaa joogay kulmiya kuwa la socdaa shirarkay ka qaybgeli jireen shirweynaha publicly bay ugu ololeyn jireen cidina lama hadli jirin laakiin hadday wadani galaan haddana waa sidoo kale kuwa wadani u ololeynaya waad arkaysaa laakiin ma arki kartid ku ka hama kulmiya ololeynaya because hadday xaggaa u dhaqaaqaan sharciga waa lagu dabaqaya marka sharcigu wuu shaqeynaya marka mucaaradka yahay qofka laakiin hadduu maxaafid noqdo ma shaqeynaya marka kolka cadaalad maaha waxaad arkaysaa iminka ololihii oo kale markii lasoo dhaafay agaasimayaal xidhan calanka tusaale ahaan xisbi ama kulmiye ha noqdo ama wadani ha noqdo oo olole ka qayb gelaya haddana xilkii agaasiminimada haya bal ka waran iyada waa sharci darro laakiin sharci darro keliya maaha sababta sharci darrada looga dhigo waxa weeye haddii shaqaalaha dowladda askarta dadyooga xeerarku ka mamnuuceen garsoorka dadyooga xeerarku ka mamnuuceen siyaasadda ay siyaasadda galaan kalsoonida dowladnimada lagu qabaa hoos u dhacaysa waayo qofkan kuu shaqaynaya hawsha shaqada dowladnimada ku wada waxaad rabtaa inaanad dhinac inaanu noqon inuu dhex noqdaad rabtaa wuu codayn karaa xaq buu leeyahay inuu codeeyo markuu maqaaxiha fadhiyana ra'yigiisa dhiibto laakiin waa inaanu publicly u muujin kuna dhaqmin wax muujinaya inuu dhinac yahay marka kalsoonidii baa haddii kale meesha ka baxaysa waayo dalka waxa wada leh dadkao dhan baa wada leh xisbiyada ku wada jiray waxaan ku jirin laakiin siyaasadda xisbiyada waxa kale leh dadka xisbiyada ku jira matalan kulmiye waxa ah wixii kulmiye ah wadani waxa wadana kaasaas oo kale wey waa lagu kala qaybsan yahay taas waana sax laakiin somaliland waa la wada leeyahay khayraadkeeda waa la wada leeyahay shaqaalaheeda dowladda waa la wada leeyahay caafimaadkeeda waa la wada leeyahay waa in wada lahaanshihii u muuqda sababta markaa loo leeyahay kuwaasi ma geli karaan saas haddaad xeerarkeena eegtid maaha oo keliya shaqaalaha dowladda macalagaasimayaasha guud looma ogola inay siyaasadda galaan guddoomiyaasha hay'adaha madaxa banaan looma ogola inay siyaasadda galaan golaha wasiiradu baa loo ogoliyay laakiin haddana waad arkaysaa guddoomiyaha hay'adadoo leh aanu xisbi baan oo golihii dhexa ku jiro oo ololeynayo marka qaran dhan oo wada political ah wada siyaasi ah waxaan ahayd qaranka in qaybina siyaasadda ku jirto qaybina shaqada dowladnimada wado waayo qofka siyaasadda ku jira laba hawlood baa saaran inuu siyaasadda xisbigiisii iyo kasbashada ummadii ka shaqeeyo dalkiina u shaqeeyo laakiin waxaa la rabaa qofka isaga loo xil saaray in dalka u shaqeeyo keliya in boqolkiiba boqol dalka u shaqeeyo isaga aanay siyaasadda wax ka gelin laakiin somaliland dhibta haysta waxa weeye cid kastaaba siyaasad bay ka shaqeynaysaa laakiin waxaanu aragnaa somaliland oo kale in xitaa mararka qaar la arko guddoomiyaha tusaale ahaan hay-ad shaqaalaha dowladda oo kale oo soo maray somaliland hay-adda shaqaalaha inuu calan ka mid ah xisbiyada qaranka somaliland u qaatay markii la weydiiyeyna uu ku jawaabay uri xeer diidiyo xidiidiyo inaan xisbigii ka mid noqdo ma jiraba markaasay noqonaysaa ma uu diidaya laakiin way yiraahaan maalin walba way yiraahaan waxaana keenaya cidina kuma xisaabinayso qofku waa inay cidida ku xisaabinaysaa marka qaladka inta leeg sameeyo oo yiraahaa waan askar xitaa waxaan anigu mararka qaar arkay askar fadhida meel reer oo kuma inta siyaasadda wax badan oo waxba isku dhex qasan moogta xeerarkan waxa ku oran qabyaalad laguma geli karo siyaasadda laakiin waa kuwa haddana reeraha u yeedha reer meel ku shirayo le xisbi hebel baanu galo saraakiil ciidan ay farfadhido booliisi xitaa somaliland waynu aragnay xilliga ololaha ka horreysay marka khaladkii weyn waxa weeye tahay in hadda la saxo because hadda xilli olole kuma jiro dabcan arrimaha maynaan arag waxay inoogu dambeysay doorashadii u dambeysay aynu galay laakiin waa wax iska iman karaa haddaan la sixinin in la kala saaro dadka wixii siyaasad ku jira iyo waxaan siyaasad ku jirin golaha wasiiradu siyaasadda waa geli karaan dadka madaxweynaha Faisal iska iyo taliyayaasha waa geli karaan laakiin dadkan kale oo dhan xeerku ma ogola inay siyaasadda galaan maxaa sidee wax looga qaban karaa wax looga qaban karaa in xeerarka la fuliyo xeerarka ayaa fulin kara laba meelood baa ku fulin karaan mid waa in madaxweynuhu fuliyo dee yiraahdo xeerarka waan ixtiraamaya qofka tallaabo ka qaado qofka laakiin taasi waa tu ku imanayso dee in qofkii madaxweynaha kale dambaa ugu jirta in loo ololeeyo marka waa adagtahay inuu saas u fuliyo laakiin waxay ka iman lahayd baarlamaanka shaqadiisa qabsada oo tallaabo qaadi kara maxkamadaha iyana si madax bannaan u shaqeeyo lagu dacweyn karo inaga muwaadiniin tahay iyo xisbiyada kale ay dacwad geyn karaan oran karaan qofkan siyaasadda galay sharcigu ma ogola marka anaa wax ku waayaya because waxaan wada lahayn ayuu doonayaa inuu u adeego cid gaar ayaa ka mid ah marka laakiin waa wax haddaynan dalal horaa saas oo kale ay dhibaatadaasi soo marto markii dambe ku qasbanaaday in xal loo helo waayo waxay keentaa xisbigan talada imanaya state capture buu omanaya dowladda oo dhan buu qabsanayaa shaqaalihii dowladda xitaa xidad baa lagu saleynayaa isuduwayaashii gobollada waxaas oo xisbinimadii baa lagu saleynayaa iyo qabyaaladii marka dowladnimadii ma soconayso macna ma sameynayso because qofkan inuu xisooran tuugada badanaysa musuqmaasuqa badan qofkan xisoo inta xisbigan haysatid ayuunbaad shaqayn kartaa marka waxaad boobi kartid boob bay soranaya wuxuu soranaya cid kale usii axsaan samee si aad kursiga usii jeegtid qofkii isuduwihii baa siyaasad gelaya oo odayadii iyo qabaalkii abaabulaya iyo xisbigiisii meesha u jooga marka dowladnimadii ma shaqaynayso marka dowladdu markay taa fahmeen go-aankaasay qaateen in la joojiyo waxa siyaasadda geli kara la kala saaro si dalku u shaqeeyo
inaga taas xeerarkii waa u yaalaan laakiin siyaasiyiin bay tahay in dadka hoggaanka ay fahmaan in aan qaranku shaqayn karin haddii aanay jirin qof dad ka maqan qaranka ku maqan oo aan siyaasadda shuqul ku lahayn inay jiraan waxaa ka mid ah wax kasta oo u muuqan kara inay yihiin siyaasad maaha keliya inaad calan qaadatid waa inaanad gelinin haddaad ku jirto dadka sharcigu u diidan inay siyaasadda gasho way inta badan shaqaalaha dowladda oo kale waxaan aragnaa iyagoo tusaale ahaan dowladda dhaliilayaba waxbaa tusaale ahaan fikir bay ka jawaabayaan ama faallay dhiibanayaan ama si kala dadna waxa laga yaaba in shaqadaba laga eriyaba bal iyada taa ka war way ku khaldan yihiin dhaliilaan definitely ma dhaliili karaan dowladda adoo shaqaale dowladda ma dhaliili kartid waan arkay dadii soo cabdolay dowladdan dhaliili waa la eriyay wax kale waa ku khaldanay aniguna I don't like dowladdanba ma jecli laakiin anu qof xoraba anoo dibaddan ka jooga marka isma dhex qasi kadib sida aanad ugu ololeyn karin dowladda oo xisbiga calankeeda u qaadan karin baanad una dhaliili karin marka shaqaale dowladeed tahay waa adiga compromise kariyay marka shaqaale dowladeed noqotay ayaad daafsatay inaad waxan gashid because dhexdhexaadnimadii la raadinayay baa ayaa taas way marka qofku mar haddii dowladda ku jiro faalla iyo hadal midna kuma dhaliili karo dowladda kuma dhaliili karo waa qalad waa adigu shaqa lagu dirtay dhexdhexaadnimo lagu dirtay waxaan shaqadaadii ma dadka inaga iyo dadkiina dibadda jooga shaqada u qaabilsan haddii kale wayna iska soo xasilaan oo ay inaga xaggeena soo fuulaan iyaga waxaa loo dirtay inay shaqadan qabtaan adeegyadan bixiyaan adeegyada inaad ku faraxsan tahay daruuri maaha matalan madaxweyne ay imanaya aanad jeclayn ood ka codaysay haddana sharcigu wuxuu kaa rabaa inaad siyaasaddiisa ku shaqaysid oo ku adeegtid because adigu inaad siyaasadda ku heshan garaysid lagama rabo su-aal gelisid waxaa lagaa rabaa siyaasadda ula yimi inaad dhaqan gelisid taasaa shaqadaadu tahay haddaanad ku kalsoonayn oo aad siyaasadda ku shaqayn karaynin waa inaad waraaqdiista casaalada dhibtaataada anu uma shaqayn karo meeshan oo ay siyaasaddan raalli kamay way laakiin iyaga bal dadka tusaale ahaan doonaya inay dowladdeena ku jiraan waxna dhaliilaan say dowladnimadeena wax ka khaldan yihiin inaga sidan uu markuu xisbiga dhex fadhiyo soo indhacad yahay isagoo shirweyne xisbiga fadhiyo ku leeyahay xaq baan u leeyahay maanta baan ahay oo ayuu kana dee usoo indhacadaanaya laakiin dadku waa in dowladnimada la fahamsiiya maaha dowladnimadu saa kuma shaqayso dowladnimadu saa akriyeli kuma shaqayso wax weyn baa ka khaldan dowladnimada dadkan ka shaqaynaya waxaa la rabaa adeeg iyo shaqa lagu dirtay waxa kala duwan afkiisa waxaa la yidhahdaa policy iyo politics policygu waxa weeye waa wax la fulinayo lagu shaqaynayo adiga inaad shaqada policyga ka fulisaa lagu sheegay politics waxa loo dirtay siyaasiyiinta markaad dowladda ku jirtid adiga shaqadaada ma inay saxan tahay inay khaldan tahay it's none of your business waad ku shaqayn kartaa waa inaad ku fulinaysaa madaxweyne cusub wasiir cusub baa yimi caafimaadka ka soo qaad wuxuu la yimi siyaasad cusub caafimaadka agaasimaha ka bilow ilaa isuduwaha wuxuu ku khasbiyay siyaasadda inuu ka shaqeeyo fuliyo way bal shaqaalaha iminka tusaale ahaan waxaa jira wasaaradaha dowladda waxaa jooga dad in badan joogay iminka tusaale ahaan qaar baa 3 sano joogay qaar baa 2 sano joogay oo in badan ka shaqeynaya haddana aan mushahariyo guna midna helino weli doonayeen shaqaalaha laga dhigo bal ka warayaga dadka xeerku muxuu sameynaya waxaan temporary-ga la yiraahdo qof waa meel qabsanaya cid buu doonaya inuu shaqaaleysiyo uu yara waaya wuxuu oranaya kaale temporary ku kaale qofkana uu dulmeeya nidaam khaldan uu abuuray qofka shaqada hadduu soo gelayo waa in sifadii sharcigeedu ku soo galo ay qofka laftigiisa waa ku dulmanaanaysa dabcan intaasoo sannadood buu meesha joogaya wuxuu isleeyahay maalin inuu lagu shaqaalaysiiyo waxaa laga yaabaa in isagoo ka shaqo badan yahay dadka shaqaalaha ahaa waxaa laga yaabaa in ka howlgelin badan yahay isleeyahay muuqo oo dee si fiican u shaqaysan aan lagu weeriyin xuquuqna aanu lahayn oo qofkii loo aqoonsanayn marka qofkii meel dhexe lagu hayo ma qofka shaqaalaysiyo mushaharsi ama ka daa baalka hadduu tababar yahay oo aad doonayso qofka inuu ku tababarto 6 bilood ilaa sanad kama badan karto qofka hadduu tababarku joogay wixii intaa ka dambeeya qofka ama waa in la shaqaalaysiiya ama waa in la fasaxaa laakiin qaabkaas waa qaab meelaha qaarkood ka jiro qofkiina waa ku dulmi dowladnimadana waa ku culays xeerku muxuu ka oranaya xeerku ma aqoonsan shaqaalu yaqaana qofku inuu ama shaqaalana waa la xariisiinaya xeerku leeyahay caada loo soo xariisanaya ama wasaaradda waxbarashada 20 qof baa ka banaanaaday soo doonta dabeedna dadku inay imtixaan u galaan oo sinaada way tusaale ahaan qofka imika xeerka marka laga hadlayo qofkii tusaale ahaan howlgabka oo kale ama qofkii markuu geeri ku timaado oo kale xeerku laftiisu muxuu damaanad qaadayaa qoyskii qofkan tusaale ahaan markuu geeriyoodo qofkii shaqaalaha dowladda ahaa hadda howlgabka waa tan la waday dadkuna way ka raacabanayaan howlgabku waa muhiim howlgabku waa muhiim wuxuu muhiim ku yahay shaqadii bay istaagaysa qofku da'dii markuu gaadho inuu meesha ka baxaa waxay keenaysaa in shaqadii ay socoto isaga laftiisana dawladna soo adduunyada waa la isku qabsadaa inaga opposite baynu moogta hadda dalalka qaarkood baa mudaharaad ka dhacaya sababtoo ah dawladdu hadday hal sano hoos soo yaro dhigto da'da howlgabka ka soo qaashin 60 been mise 60 ka dhigto dadku ka mudaharaadayaan sababtoo qofku wuxuu hore howlgab u galo oo dee cimriga inta yara uga hadhay uu iska nasto aanu aruur ba xafiiska soo taagan laakiin inaga waxaan sheegay cabashada waxa keenaya maadaama wax la bixinaya ay dadku dareemayaan inay yar tahay qofku wuxuu soranayaa inaad meeshii joogtaaba malaha ku ayaa kaaga wanaagsan xagga income-ka marka taana mustaqbalka dee wax lagu daraa inuu qofkii wixii wax ku yara noolaan karo inuu yahay oo la kordhin karo
يمكن أدبو يري وحاول قبل الله قرد ولد وقرتي ها I think إنه $100 يعني ما هو لكن الحاجة أدبو يروي وين مستقبل كلا فكرة إن الكردي وين على هو حاول قبل كي ما نساوي حكام ده إن هرلو فليا أيه هاد صوت دتك محلول لجوي هذا الدولة دي صوابها العقد ويرنس حكي العقد ماله تعلف ربنا بانشري مكان حكي يجي حقي ميزانية دي كي يجي لكن واحد سنة أنت نوقف كشقيني صدق سنوات بشقيني صدق حسن رضا سنة دول بالول بين العقد ماله رجع به هقول جب كيسة ما هنا بريق الشغف هقول جب كيسة وينو قرنا يا by the time وهقول جبه العقد يسوي أنت لاك تاعي مركا أما بالبل هلاسي أما كوس هلاسي لكن هذا إنك negotiation كيبه هذا بلامي هذا اللي يمسن السنة سو بتاع العقد كي ماله رجع ما جرت مركا هذا كسيان تاسن دول ميقول نقول وين قرشوه نقطة قرش مدة دير أو حد مثلاً ده هذا كوتشرا لو تنشير ستنشير فتشير حلقة هالجبي فوقت هاي هذا وين لاسي عقاب كي هالجب كودو شغال هاسي مركي حلقة قاعد وقف في واحد وكون على عنكر إلا دتك إن مركه هرب عين فردير ما له واحد هاي دلالك وجو جيرده بدن بينه هاي دتك واحد يقول ما أيام دوري كونتون واحد لحسن كقاعد ومدينا ويرث هاي دادينا هالجب كي نوصل هاي مركه دتك هالجب يأدت بدن معها مركه ذي يكتي لكن شغالة واحد شراء دت بدن حتى دادو حلقة هالجب كمان ضافتي أول وزارتها من دولة كشقية دي ويسكتش على لاين هالجوب معنا له هدوء شرين هالجوب يسكت جلان لكن هالجوب هنا معنا ما له وحنا متشران وقرشاي تاي لنا دولة وكاس حسن تاني شقادي بلوضو وده مالين وبالا بلا واسق شو بهن مدة دير لقى فكرة ده كان كل قبته ويكون عادي ويحلو كرد الكهرباء لكن سيدا ونقول ده كسوش على لفسي دوين لا سمعي قرش ده way tusaale ahaan iminka qof dowladda in badan u shaqayn jiray oo weli isagoon howlgabkii gaadhin baa geeri ku timi tusaale ahaan isagii baa dhintay qoyskii laftiisii maxaa si aanay u noqon tusaale ahaan dee hantida ama dee low kalaasa maxaa la gudbaa hadda qodobkii ma xasuusnay inaan eegaabay noqonaysa hadda qodobka toos ma xasuusnay in ku jirin kala ma hubo way waxa jira qofku tusaale markuu in badan dowladda u shaqeeyo waxa la siiyaa gunada loo gunno badan baa la siiyaa tusaale overtime oo loo ku shaqee laakiin nagu ma lihiin halka Soomaaliland oo kale xeerku ma ku jirtaa gunada qofka loo kordhinayo lacag badan la siiyo yo overtime ma shaqeeyaan shaqaaleedu saacad 8 saacadood ma shaqeeyaan meesha waxa laga kala yaacaa 12 ilaa 12 cidina ma joogto wasaaradda maaliyadda 8 subax u tagaysaa cashuur baa ku siinaysaa waraaq yar overtime bay ka taxayaan maxaad overtime ka igu shaqeeysaa aniga 8 subax ma joogtaa qofka time-ka saacad dheeraad ah shaqeynaysaa qofka aad u shaqeynaysaa adna kuleed aniga igu mari laakiin waa lacag la doonayo in dadka laga qaado lagu culays la saarayo qofka cashuur bixiyaha qoladaas ka qaadata dadka waa qalad reeri gif weyn weey dadka loo geysanayo qofkan cashuurtiisii uu bixinaya cashuurtana dadka mushahar laga siiya marka ma ahan lacag dheeraad laga qaado cashuur dheeraad oo moogtay laakiin haddii si guud u eegno cid afartan shaqeysaan uma garanayso maalan dadka dhakhtarada ka shaqeeya laga yaabaa inay shaqeyn karaan overtime taas waa aad bay suurtagal u tahay dadka caafimaadka shaqeeya laakiin hadda wasaaradda waxbarashada qof ka shaqeeya wasaaradda biyaha qof ka shaqeeya wasaaradda I don't know hawlaha guud qof ka shaqeeya 8 saacadood ma shaqeyso dowladdu 8 saacadood ma shaqeyso wasiiradu ma shaqeeyaan agaasimayaashu ma shaqeeyaan guddoomiyaha shaqaale ma shaqeeyaan guddoomiyaasha hay'aduhu baan lahayn ma shaqeeyaan shaqaaluhuna ma shaqeeyaan marka hadda xagaa laga gudeyn badan baynu ku leenahay marka nahay cashuur bixiyaasha xilligan garsoorayaashu ma shaqeeyaan xilligan noo shaqeey Soomaaliland hadda deegtid wax shaqadooda waqtigeedii ku qaata ama waqti ka badan ba shaqeeya qola aynaan hadda ka hadlayno in Xuseen oo ah askarta jirta tan askar saacado badan bay shaqeysaa yiribtu marka qaarkood ku durbanta hadda booliisku kala adeegtid saacadaha shaqeynayaan ma balade saacadaha shaqo ma leh qofka xaloonay askari baa tamam shaqeysaa saacad walba shaqeynaya jacayl shaqeynaya wax shaqeynaya waana bini aadan moogta waa in markuu adiga ku mushaariga ka shaqaalaha dawladda 8 saacadood waa inuu adiga carada kugula soo dhaca marka la nafti baa haysee eegay lafti waxay 8 saacadood leedahay qofka shaqeey dhibaato weyn ma aha hadii leedo bidaha 8 saacadood baad shaqeynaysaa 8 saacadood markay dhamaato shift bay noqonaysaa iska tag mid kale meesha ha yimaado qofkii isagana waa yara nafisi lahaayo maalinta waqtiga intiisa kale wuxuu qabsan lahaa oo reerkiisa u tagay meel iska aadiya laakiin hadda saacadaadu fara badan bay askartu shaqeysaa marka kuwaas oo kale waa dhiban yihiin dabcan cusbitaalada waa ku arkay iyagana dad saacado badan shaqeeya laakiin majority-ga dadka dawladdu shaqeeya shaqa ma hayaan wallahi waxa shaqeeya ma jirto lacagtan waxay ku qaataan majority-goodu waa iska bisil waa bilaash uma dhiganto shaqada ay qabtaan iyo mushaharka ay qaataan shaqeeya u leeyahay 8 saacadood buu leeyahay dawladdu marka ay timaado cusub tahay wax taala labada la joogaya laakiin hadda hadeen tagno wasaaradda waa cilda laakiin waxaa wasaaradda qaar firkan Britain soo kordhiyay ilaa 3 qaarkood lagu jiro way xiijinayaan waxay oranayaan dadku inta wada saaraan bay iska wada tagaan inta badan kus muxuu qabanayaa qof shaqo ma leh shaqaalaha dawladdu dhibaatooyinka iyaga hayso waxa kamid ah wasaaradda baa matalan waxay qaadi kartaa 40 qof 200 qof ka shaqeeya ama 300 qof
shaqadeeda kuraasta ay hayso iyo tirada shaqaaluhu way kala badan yihiin marka waa qasab in dadka qaar laga yaabo iska taga haddii meeshu mudaharaad bay noqonaysaa wasaaradda 200 qof ma qaadi karto iyada iyo dadka adeegaya markii meesha isugu yimaadaan in la isku dilayo la moodayaa ila meeshan waa qolkan iyo dhowrkan qolo yar yar aragtay because of staffing baa jira dawlad waliba dadka way iska shaqaalaysiinaysaa dadkan waxay mashaariic iyo programs loo sameeyay ma ahayn in dawladda la yiraahdo shaqo looga abuuro ma jirto meel adduunka dawladdu shaqo iyada loo soo shaqo taga ay tahay shaqo abuur ma noqon karto dawladdu meel hawli ka socoto laakiin dadku waxa loo abuuraa barnaamijyo shaqo abuur ka dhalanaya hadda infrastructure kan dhisaya wadooyin iyo hawlo furtid iyo beero iyo wax dad baa ka shaqo ka helaya marka shaqo abuur waa sameynaysa laakiin dadka wasaaradda waxbarashada 30 qof ha qaadato 30 qof 30 xisaabiyo 30 loo yaraad qortid maxay ku qabanayaan way laakiin dadka laftoodii dawladdu bay imika soo shaqo tagaano imika shirkadihii ganacsiga iyo meelaha shaqaba lama doonto dadna taasoo keenaysa in qofkii kasta mas'uulkii kasta yimaadaaba uu qof shaqaalaha qoro wasaaradda ka waayo shaqo la'aan baa dalka ka jirta hadda shaqada reedka shaqo la'aan dalku aad bay u sareysaa marka dawladdu in la timaado qorshihii shaqo abuurka lagu sameyn lahaa maaha qorshihii dadka wasaaradda looga shaqaysiin lahaa oo laba arrimood aad kala duwan shaqo la'aantu si aad iyo aad bay u sareysaa dabcan qofku la yaab ma leeyahay in dawladdu shaqo doono way tusaale ahaan shaqo ka tagistoo kale haddii shaqaaluhu inta uu shaqada tusaale ahaan iska casilo ama uu isagu doono inuu ka tago maxaa xal noqonaya dee way iska tegaya tacaadi uu tirsanayo wuu iska tegaya hadduu tacadisan waa inuu caawdaa oo hay'ad shaqaalaha u tagaa laakiin hadduu isagu goono inuu iska tago xiriirka uu go'aya Soomaa xiriirka shaqaalanimada loo dhowr siyaabood buu ku go'aa dhinacyadu si voluntary ay u goyn karaan si iskooda oo qofku oran karaa meeshan ma doonayo waan ku dhibtoodan iskaga tagay aba ma doonayo inta uu sameyn karaa reason ku xidhana laakiin hadduu cabasho qabo in lagu gafayo waa in hay'ad shaqaalaha shaqo taga hay'adda shaqaalaha cabasho taga way haddii tusaale ahaan shaqaalaha dawladda oo kale uu ama agaasimuhu doono inuu caburin ku sameeyo oo kale uu hoos u dhigo ama shaqadiisii ama qof kale ku bedelo ama maxaa isaga la gudbo is everything wax kasta oo la xiriira cabasho shaqaalanimo oo qof dawladda u shaqeeya uu qabo wadada u furan waa in gudida hay'adda shaqaalaha cawd way wasiirka kale imka waxaad xustay in magacaabis badan uu sameynayo oo agaasimo waaxidyo badan uu sameynayo ka yimaadaaba qaar kale cusub uu keenayo muxuu markaa ku bedeli karaa wasiirku markuu habkaa iska joojiyo inuu magacaabo wax dee ka soo qaadada hadda wasiir lagaa dhigay dadka meeshii ugu yimi hay'adiina ha shaqeeyaan iska daa madaxweyne golo wasiiro dhisay wasaarad shaqeynaysa dadku wasaaradda oo shaqeyso markaad shaqeysid qofkii aad ogtahay inuu shaqadiisii ku fashilmo wax qaban waayo kaa bedelo ku bedel qof kale oo u qalma laakiin unug u hooseeya ilaa agaasimo waaxid ayay bedelayaan hadda Facebook guda gashid waxa leys ku jira ummadood yaabaysa baan necessary oo daruuri xitaa dadkaasi inay noqdaan public information oo cid waliba ogaataa daruuri ma aha laga yaabo meelaha qaar kood inay amaanka dawladda ba aanay dan ugu jirin in dadka la ogaado laakiin dadkii meesha sii joogay tusaale ahaan ama agaasimo waaxid lahaa ama maamulka ahaa haddii tusaale ahaan wasiirku u baahdo ama qof shaqadiisa sulugo kale siduu muxuu sameyn karaa wuu eri karaa qofkii shaqadiisa suluga isagoo shaacin markaa ha أول بلا مش عين واقي بدوام ببلعبتي واحد فيسبوك وعرضية دولتي ريالية عقالية ما أركي جدا واحد شري كل مية على واحد لكن مو حجتين يعني ويصير كوساس وكلام شعبي ولا هذا بالباحث القضاء ما وحش ومعمل حمى وحش والدولة حمى وفرصة حمى رغونا أحسن معه قف كانوا شغال الدولة دي ماشي أنا عدو واحد لقى عقدي ويصير كله ويصير ما ديسيد ما كان وسعر ضمام ولا كشقيسو سيف عني وشقيسو رسل كان نتيجة dadku ka rabaa aniga maxay ka garaaga isma xeedka planning ee wasaaradda xibla wax rabaa inay shaqay qabsanto Soomaa qofkan laakiin laftiisa la magacaabayo inta sawirkiisa la soo dhigo oo Facebook ga haysanayo aad moodo isagu bay soo dhigaya ها يسوق على سوق دقيقة مين عرقاس اللي في سوق waa hankeeni waa hoos yara dhacay madini waa dhibaato guud ka haysataa laakiin doo faham darada guud aan ku sheegay shaqaalaha dawladda laga qabo baan islaahay ba qaybka oo inuu fahmno maxay shaqaalaha dawladda yihiin ila tahay qayb xaalad ka tahay maxay askarinimo tahay maxay garsooranimo tahay qofku inuu shaqada aad u fahmo waa muhiim waxaas waa wax dhexdhexaadnimo yani neutrality afkiisa wax ka duwan neutrality impartiality baa yada aniga lagama baahna neutrality hada ayaa adiga toon cid doonta raaci karta xor baad u tahay laakiin qofku markuu shaqaale dawladeed yahay markuu askari yahay markuu garsoore yahay waxa laga rabaa inuu noqdo dadka dhax waxay ku kala duwan yihiin dhax uu yahay ka madaxweynaha nacab iyo ka jecel inay u siman yihiin ayaa laga rabaa waxa laga rabaa inay siyaasaddu saameyn way qofka tusaalahaan markuu shaqaalaha dawladda laftiisa ah inuu barto xeerkan shaqaalaha dawladda oo akhriyo oo ogaado iyada maani muhiim ah muhiim baa inuu ogaado muhiima in
isla hadda su'aasha hore weydiisay malaha hay'adda shaqaalaha waxba uga doorba uga furan inay wasiirada ku tiraado joojiya sidaan u dhaqmaysaan meeshani maaha golo wasiiro maaha wasaarad baad u timi wasaaraddaada si fiican u maamulo ha siyaasadaynin xitaa way qabiiloobaysaa soo ma ogid marka la yidhaahdo wasaaradda waxbarashada ama caafimaadka ama biyaha ama leyrhka gaashaandhiga intaasoo waa la eegayaa kani waa reer hebel kana waa kasii reer hebel waad qabiilaysay isuduwayaasha waad magacooda waa la eegaya waad reer hebelaysay marka xitaa qabyaaladii qayb bay ka noqotay inkastoo dee dhibta jirto wasiiradii ku waqaanayaan oo qaarkood odhanayaan reer hebel baa intaas siiyey qabyaaladda meel walba gelaysaa dhib inagu ah meelaha qaar ay ahayd inaanay gelin bay gelaysaa way su-aal ka baxsan tusaale ahaan xeerka shaqaalaha dowladda ku weydiinay guli inta badan adiga waxaa la arkaa adigoo wax walba si xora tusaale ahaan uga hadlaya oo aan basha lahayn ama ha noqoto wax kacay dadkeenina waxaynu ognahay tusaale ahaan haddii shidaalku yaro kaco haddii wax yaro kaco inay aamusayaan oo aanay ka hadlaynba oo aad moodaysa inay xanjo meel ku wada dhegsan tahay oo qof walba odhanaya bil adiga tusaale ahaan shaqa lagaa eriyaa bil maxaa adiga kuu fududeeyey in tusaale ahaan qof xora oo si xorriyada aad u hadli karto intaan su-aashaada ka jawaabin hadda ka soo qaad waxaan doonayaan si loogu fahmo arrinka inu ka hadlaynay hadda haddaan anigu shaqaale dowladeed noqdo fikirkayga waan haysan karaa laakiin ma cabiri karo anigu guuleeda haddaan garsooro noqdo fikirkayga waan haysan karaa haddaan wasiir noqdo fikirkayga waan haysan karaa golaa wasiirada waan kaga doodi karaa laakiin dibadda kama sheegi karo intaan soo istaago ma odhan karo dowladda waxbarashadii bay khalatay adoo wasiira marka dadku waxay u baahan inay fahamso waxaa ka mid ah mawaaqifka dowladda dadka ku jira waxaa laga rabaa iyagu inay dowladda dhexdeeda ka doodaan dowladda dhexdeeda ay aragtidooda ka dhiibtaan laakiin dibaddeeda aanay ka dhiiban waxaa la yidhahdaa haddaad dowladda ishaysashada dhexdeedu ay gaadho inaad dibadda wax ka odhan kartid waa inaad isicsilaada geysaa adiga hadda arkay wasiirkii gaashaandhigga ingiriiska mandowta iscasilay miisaaniyaddii gaashaandhigga iyaga la kordhiyey ayay isku khilaafeen marka ma dhaliili karo ma odhan karo ra-iisul wasaaraha si khaldan ba miisaaniyadda u sameeyey marka waa inuu kursiga ka taga kadib dabadeedna uu yidhaahdaa si khaldan ba wax loo maamulay marka taas horta waa dhaqanada tahay dadku fahmaan waa taas dibadda markaad joogto xor baad fikirkaaga u tahay gudaha markaad tagtid laakiin xor ma tihid fikirkaaga daakhiligaasad ka sheegi kartaa internal baad ka sheegi kartaa laakiin dibadda dowladda kama soo sheegi kartid adoo dowladda ka jira taas aad bay muhiim u tahay waa la mid haddaad meel kastoo ay dadku ka wada tirsan yihiin anigu shakhsiyan fikirkayga waan iska dhiibtaa marka ma garanayo sabab gaara laakiin waxaan qabaa inay dowladnimadu u wanaagsan tahay inay jirto challenge ka baxsan dowladda in dibadda wax laga saxo dowladnimadu waa muhiim marka dadka qaar waxaa ku leeyahay matalan niyo dowladda maad bagashido waxaad sheegaysid wax ka qabatid waa wax loo jigo eeg laakiin ka soo qaada inaan gabo yani adigu madax dowladda gashido waxaad soo qorayso waxaad leedahay waa khaldan madax ka qabatid waa logic laakiin eeg dowladda waxa weeye xitaa haddaan anigu galo still shaqadan waa loo baahan yahay dibadda wax laga sheego because saasay isu dheelitiraysaa dowladnimadu dowladnimo ma aha dowladnimada inaynu haysanaa kuma shaqayn karto dad gudaha ku wada jira dadka gudaha ku jira ma wada arki karaan wixii ka khaldan ama mararka qaarkood adigoo arkaba waxyaabaha kale qofku ilaalinaya markuu gudaha ku jiro xitaa qofka wax saxayay u wanaagsan tahay haddii 20 qof golaha wasiirada ku jiraan oo 2-3 qof oo progressive oo doonaya dalka wax ka qabtaan ay joogaan oo inta ka badan ay mar walba golaha wasiirada gacanta maroojiso haddii buuq badan dibadda ka abuurmo wax laga yaabaa in la dhageysto dadkii baa sidan sheegayay oo in arrimaha wax ka qabna warbaahintii baa falanqeynaysa marka warbaahin xora dad wax falanqeeyo xora ururo bulsho ururada haweenka ururada dhalinyarada mujtamaca xoogsatada waxaas u dhameynaysa abaabulaan oo danahooda ka hadlaan oo ay dowladnimada dhalinyarada waa qayb ka mid ah horumarka dowladnimadu leedahay kuwa markaad weydid gudahana shaqo kama socon karto ciday doonto marka cidaas waa haysa hebelku muhiim ah mid shalay wasiira baa dibadda iman kara dabeedna wuxuu bilaabi karaa inuu isagu shaqada qabto dowladda dhaliisheeda sheega mucaaradka sheegaya warbaahinta sheegaysa qofkii warbaahinta haba dowladda geli kara kii dowladda haba biri warbaahin noqon kara mujtamacu way isku warwareegaya arrintu hebelada ma laakiin waxa muhiim ah in hawshaasi socoto in yani shacabku tusaale ahaan uu hadli karo oo wixii khaldan uu sheegi karo tusaale ahaan in shacabku tusaale ahaan inta aan dowladdaba ka tirsanayn ama tusaale ahaan qofku wixii khalad ula muuqdo isagoo dee aragtidiisa uu cabiri karo xora tusaale ahaan dowladda wax ma ka bedeli kartaaba markuu qofku wax sheego yidhahdo waxayo xasan khaldan tusaale ahaan dowladdeenu way la dagaalamaan dadka of course waana laga yaabaa su-aashaadii hore in la xidhiidho dadku maxay isaga yara ilaalinayaan dee ciqaabi way ka dhalanaysaa dadka waa la xidhayaa waxa laga yaabaa qofka dhibaatooyin fara badan oo kale in uu geysanayo waa inay dowladdu iska daysaa taas waayo xorriyaadkan dastuurkay kugu qoran tahay laakiin damaanad qaadkooda waxay ku xidhan tahay in hay-adihii dowladeed ku ilaalinayaan haddii booliiskii u haysto
inuu xukuumadda ilaaliyo wasiirka cabanaya uu la soo hadli karo booliiska dadna booliiska odhan karo qofka igu yeedha ama soo qabto dee qofka xorriyaadkiisa dib baa ku noqonaysa qof hadduu ganacsi haysto oo dowladdu kadeedo sababtoo dowladdu dhaliilay waxa laga yaabaa inuu iska aamuso isaadoo foodka markay gaadhaabaan ridi doonaa ayaan iska aamuso ma qofkii inuu aaminsan yahay macnaheedu ma dowladda caashiqsan yahay hay'adda dowladdu marka qaarkood inay ismoodsiiso dadku aamusanay malaha way ku taageersan yihiin laakiin ma aha dadku waa smart foodkooda way kula sugayaan dad horena saasoo kale way u eedsiiyeen codka dadku inay hadlayaan xitaa waxay keenaysaa dowladda waxay dan uga tahay inay ogaadaan dadku waxay doonayaan waxay diidayaan cabashadooda intay gaarsiisan tahay si aad wax uga qabatid aan la isugu aamusin marka waxaa ku jirta xukuumadaheena iyo siyaasiyiinteena dulqaad la-aan aada u fara badan qofku isagoo shaqo ummadeed soo doontay buu haddana doonaya inaan lasoo hadal qaadin haddii meeshan kugu xigta qofka meherada ku haysta dee cidina ma dhaliilayso qofku meherad buu halkiisa iskaga haysta cidina wax kama sheegayso qofka wax ka sheegayna dadkaa qabsanaya maxaad ka rabtaa qofka dukaankiisa haysta laakiin waad ka timi oo waxaad qabatay shaqo ummaddu leedahay wasiir baad noqotay madax baad meel ka noqotay ummadda cashuurteeda waad ku shaqaysaa dadkii waxaan lahaaba wax kaa sheegay haddana waad carisan tusaa wax laga sheegay baa laleeyahy dee waa shaqada iska xasiishaa markaa masaajkaaga iska tagtaa ayar iska cibaadaysataa laakiin meeshanaad soo doonato waa meel is dhaliilayo waa qofka tusaalahaan dowladda u shaqeynaya aan haddana dhaliisha xamineyn tusaale ahaan qof aragtidiisa soo cabiray ama meel uga yeedhaya ama xidhaya ama dacweynaya ama in badan haysanaya oo kale bal ka waran waa qalad waa dulqaad daro adigu afkaaga ku celba wasiirka afkiisba leeyahay ee lama le aamus haddaan wasiirka hadda adigu dhaliishid ama warbaahinta wax ka sheegto dee isna hayaad waxaa ku sheegaya beenta xogka ma jiraan afkiisa ha iskaga cisho laakiin dowladnimada yuu isticmaalay inuu qofka ku caburiyo difference waa kaas markasuu laleeyahy dadka aan la caburin lama le dowladdu ha aamusiyo wax iska celinin dowladdu afkeeda wax iska celiso ha hadasho ha doodo ilaa dadka wax dhegeysanaya caqli bay leeyihiin labada qof wax wada sheegaya ka sax sheegaya ka aan sax sheegayn wada arkayaan laakiin xariga iyo caburinta iyo cagajuuleynta iyo ciqaabta dadka ku sameynaysa sababta qof kursiga jooga baa dhaliilay qof kursiga jooga dhibsaday dhaliil loo soo jeediyay waana qalad dowladnimadu ma wanaagsana qofka hogaamintiisana ma wanaagsana qofka hadduu dooda qaadi karin berigii hore dhaqankeena marka qofka madax laga dhigayo waxyaabaha la eegi jiray wax ka mid ah inuu qaadi karo qofka haddaanu qaadi karinin la reer buu u yahay tusaale ahaan ama caaqal reerkan cid kastaa ku jirta mid baa caytamaya mid baa si fiican u hadlaya mid baa dagaal meedhana mid baa qabsi mid muran meedhana inuu qaadi karay in kale la eegi jiray haddaanu qaadi karin waxa loo jiray iskaga tag nooma qaban kartid marka horeba geedka looma dhiiban jirin sida aynu qabiilka markaynu wax dooran jiray aynu u eegi jiray qofkani shakhsiyadiisu waxay tahay qofkan xagga sare u dhiibanayna waa inuu wax qaadi karo qofkan waxaan qaadi karaynin inuu shaqo sii hayaan daruuri ma ama weyn la eriyaa ama weyn shaqaysiga way ugu dambeyn qoraal in badan dadka soo jiitay oo aad bartaada Facebook kusoo qortay oo ahaa tusaale ahaan in qofka ama wasiir dacweeyo ama tusaale ahaan CID-da looga yeedho aniga hayla soo xidhiidho dad badan fikirkaa way soo dhaweeyeen bal ka waran qofkaasoo kale tusaale ahaan maxaad adigu qaban karaysaa dariiqa ha waayo waxaan arkay dhowr qof baan ogaaday oo booliis yeedhida waa form of intimidation waa qaab lagu xabsi gelinayo qofka xarig oo kale la mid tahay actually marka sharciyan loo eegayna waa qayb xariga ka mid ah because qofka saacadda la wareysanayo wuu xidhan yahay xorriyadiisa kuma jooga ama labada saacadood waa cabsi gelin maxaa laakiin la yeeli karaa mar kastoo la qarsado waa mar kastoo ay dowladdu kusii dhiirato dadka inay qabsato laakiin mar kastoo dadka la qabanaya ay hadlaan ay dadweynuhu ogaadaan qofkan dadka xidhanaya wuu dib u guranaya because ma doonayo isaga laftiisu in la ogaado ma doonayo in lagu buuqo marka waxaan doonaynaa inaan dadka loo qarin ee dadka loo sheego leeyahay qofkaasaa la qabsaday waxaasuu sheegay garsoore waxaa ah dadweynaha anu waxaan aaminsanahay go-aanka u dambeeya ee garsooranimo waxa iskale dadka shacabka iyagoo xukuma iyagana cid go-aamin karaa marka garsoorkaa rasmiga ah ilaahayna tiisa way taallaa ifka guudkiisana garsoorka ugu badan waa dadweynaha in dadweynaha la hordhigo aan dadka loo qarsan qofa meel laga helin oo maaragtay xurta lagu qabsanay in dadka kaga qaylino baan aaminsanahay inay jirto way soo dowladihii kale dambeeyay ee Soomaaliland ugu dambeyn waxa soo badanay xariga warbaahinta oo kale marar badan aad ka hadashay oo aad fariimo kala duwan ka dirtay bal xariga warbaahinta iyaga ka waran waxa weeye xadgudub weyn berigii hore dadku berigii hore 10 sano meelaha ka hor marka warbaahinta u doodayno dadku waxay oran jireen maxaa wax kasta ku hadlaya maxaad warbaahinta ugu doodaysaa waxaan ku oran jiray marka warbaahinta la soo dhaafay idinka la idin imaanayo waa front line-kii haddaan wax kale ba eegaynin dowladdu markay warbaahinta soo qabato hadda dhowr iyo 10 sano ilaa 2010kii warbaahinta Soomaaliland culays badan baa ku socday warbaahinta ma aha kaliya in wariyaal la xidhay warbaahinna fara badan baa la xidhay oo hawada laga saaray had baa ka mid ahay wargeysyada muhiimka ah la xidhay tii waxay keentay caburin weyn bay abuurtay qaab fikirkii warbaahintana way qaabaysay warbaahintu hadda way ka taxadar badan tahay ahaan jirtay waxyaabo fara badan kama hadasho iska ilaalisaa because qofna ma doonayo in la xidho qofna ma doonayo warbaahintiisa in la xidho iyagu saa u taxadaraya wali la xidhay tii waxay keentay dowladdu markay warbaahintii bur la soo dhacday inay Facebook qof comment wax ku qorayna xidho in qof post soo dhigana
inay xidho marka culayskan warbaahinta la saaraya ugu dambeyntii waa sidoo kale waa wax dhib ku ah xorriyaadka shakhsiga ee dadka reer Soomaaliland matalan hadda haddii dawladdu dadlayso cidda sheegaysa dawladdu inay dadlayso waa warbaahinta haddii warbaahinta la aaminsiiyo dadka in la laayaana way fududaanaysaa in wax la xadaana way fududaanaysaa in dadka la dib loo geystaan marka muhiim weyn bay u tahay xorriyadda warbaahintu xuquuqaha kaloo dhan iyo xasiloonida iyo dimuqraadiyadda dalkaba waxay tahay muhiim haddii tusaale ahaan dowladayn badan xariga warbaahinta oo kale ay caadaysatay warbaahin badan xidhxidho maxaa ka dhalan karaa horta way aadaan warbaahin dowladaha dadka warbaahinta xidhxidha oo siyaasiyiinta kama faa'iidaan because dadkiina way arkayaan oo dadku way ku dhacayaan dimuqraadiyaddiina way dhaawacaysaa iyo xasiloonidii dalku lahaa way isku xidhan yihiin inaga dalku markuu dimuqraadi yahay dimuqraadiyadda xasiloonida ku salaysanta because xasiloonidii boqor weyn oo dadka ilaashanayo le anaa xaq u leena ma xukumo dictator laga baqayaana ma xukumo marka dimuqraadiyad baad u baahan tahay si xasiloonida siyaasadeed ay u jirto nidaamka taana waxbay yeelaysaa sumcadda Somaliland ceeb bay ku tahay Somaliland iyadoo shaqo wanaagsan haysata oo la amaanayo ayuunbaa wariye meel lagu xidhay مثلا ور نيجاتيف مركبة بحية مثلا الديمقراطية بان هاي بالي إنجليز كأفريقيا أنا قاعد أقول أنت سوري أنا واحد أحس مدحونا مسبح أمريكان كتشوجا ودد مهم لا كل ما يهرج سوري يلا واحد ووركي مركبة وحجارية يعني إسنا ماشوا كهالي ديمقراطيات بكهالي أو contradictions مكا سمعت الدبيت أنا واحد كنت هاي قفنا واحد يعملها راح معنا بدن معها هذا ما أنت هتقول أنا صح عين شيء dee waxa yeelaysaa ma jirto haddii tiraahdo warka uu sheegay uu qaldan yahay oo saas ku qaldan yahay yana way sheegatay wixii ana shacababa eegaya haddii warka dawladdu la saxsan yahay been buu sheegaya oo dawladdan raacaya haddii kaagu la saxsan yahay xoranaya dawladda been sheegaysa dadku dee caruur yar hadalka laga ilaalinayo ma way laakiin ama shacaba noqdo ama tusaale ahaan qof wariyaaba ha noqdee waxyaabaha ugu weyn ee dawladdu ku eedeeyaan ama dawladdeena Soomaaliland ama kuwii horeba ha noqotay marka wariye la xiro waxa kamid ah kicin shacab tusaale ahaan ama wuxuu la shaqeeyaa Soomaaliya oo kale waxyaabo waaweyn baa lagu eedaa bal ka waraniyo kicinta aad bay adeegsadaan aan waxaan ku leeyahay dadku markaa meesha xanaya marka leedahay kicin erga kicin soo ma qof furdo ama meel jifaal hebel soo kac moogta ama hebel soo kac marka dadkii waxa ka soo qaadayaan dad doqomo meel iska hurdo dadkaan ugu kicin weey war dadku ha kacaan oo ha soo jeedaan oo hantidooda la xadayo ha eegtaan oo waxbarashada ha eegaan in waxbarasho la siiyo caafimaad inuu jiro ha eegaan oo askartoodan inay mushahar fiican qaataan iyo inay dulmeeyeen cagacadiina ha eegaan dadku inay kacaan khalad ma laakiin iyagu wax ka dhigayaan دمبي بيكرجيان دوب تقوى وين تذكر إيه ده يوم حكم إذا يعني كعنده وها فكرة قلدان وسياد برها لقى دحلي دولة ميليتري هو ميليتري تذكر يعني كعين برها because تذكر هذاك صوت شيستان ويستيلي يعني الحب وقف كنا كويس دولة ديمقراطية كعنده دوينة كبق ضمها because وحلو وجود دورتي بس تذكر كود دورتي تذكر اسمها هيسان تذكر كرسي كعمق قاعدة يعني because وحلا هذا وقت مدحلات بعض هذا يجا كود دورتي شالي هذا مدحينه عبد الرحمن شالي قف شعب أبوها مياه هنسكمري maanta inuu madaxweynaha wuxuu ku noqday dadka doortay dadkii inuu ka baqoyo maxay u kacayaan ma aha inuu kaca socda mudaharaada caadi baa tii no problem dalka idinka iskale marka waa fikir khaldan tan kalena waa leadership yani qof kasta ra'yigiisa ma difaaci karayo inuu qof kasta ra'yigiisa aanu difaaci karin waa inuu cid kale ka dambaysa ama meel kasta ka imanaya waa hadal iska leadership kaas way ugu dambeyn salahan in warbaahintu ay hesho xeer sax ah oo Soomaaliland oo lagu dhaqmo oo dawladdiina tusaale ahaan warbaahintii ka ilaalinay warbaahintana lafteedii dawladda ka ilaalinayo bal ka war يا جماعة هو سؤال مهم بس ورباهين توقف فكرته ما كنا ورباهين هلا إلى الحريات كذا مليهين ورباهين تو معصوم وقف فكرته هو براهين تو بني آدم وبني آدم كنا بقول كي قف دور قف صح إنه ويكون شريان دور قف خلدنا إنه ويكون شريان قف كي صحنا ما أنت أنا بس أنا وقف فكرة هذا قلنا وقف فكرة قف كستانه وقف فكرة لكن دلالة الديمقراطية قاعد كي صح وحوي وحيران مدنية ومعناه هي قف وحلا صح يا هذا ما أنت عايدين وأن دريمو واحد يجي ستي والباهين تجي ستين وعيين المحكمة تجي كرو دعوة مدنية فران كرو مقدوك ويدي سنكرو وران كرو عيدي وجارتي اسمع درب يوسمي أنت تيجي جارتي سنتاي محكمة تسي حق نوجو قرنقضو هذا يواركتو إن أنا واحد عيوين ودي بلهين قلت هذا وقت كرت أنت وياها اسكتك هدي كانوا لو هلا عكس حق كل هذا وين مدني لوجو محرين والباهين هذا لوجو مسؤولين دبنا لوجو مجيسن قابل لوجو إلى علينا ولا السمي سمعت لكن واحد دبته كي من يساعد وحوي عيد ساق ولا قرر ما يسامح شو تو هذا يقول يسكت دفاعي كرتدي بوليس بقى أنت كوي ما دام بكتب بينه وتبعده ما حد عاي هبل بعاي دي تسحق معه marka criminalization baa la ciqaabayn waxay nagu diidan haweenaan la ciqaabayn in warbaahinta ay ma diidan in warbaahinta la xisaabtamo warbaahinta waa la xisaabtamaya warbaahinta waxa lagu xisaabtamaya in xeerarka la xoojiyo in tafatirayaal yeeshaan in nidaam yeeshaan because marka soo tafatirayaal nidaam leeyihiin qofka tafatirayaal laftigiisa waa qayb xisaabti kamida qofkii wixii soo duubay qofkan kale ka eegaya warbaahinta qaabka lagu xisaabtamo waxa kamid waa suuq furan iyaga waxay ku jiraan free market
intaas warbaahin odba maanta jira inaan mid daawadaa waxay ku xiran tahay sida aan uga helo Soomaa marka way tartamayaan inay tartamaan waxay keenaysaa inay wax wanaagsan ku tartamaan marka cabrinta laga daayo marka waxa jira sabab intaas oo siyaabo kala duwan oo aan xarig ahayn oo warbaahinta arrimaheeda lagu maareyn karo laakiin inaga waxay dawladeenu obsessive ku tahay waana dhaqan dadku iska leeyahay in la soo xiro qofka ku yimanayo qofku ka cabanaya wadageysanaysa lawyer tala sharci baan ku weydiinaya oo kooranaya inuu talada sharci wasaa qofka u soo xiri lahaa baan doonaya ku qoranaya de maxaad u xiraysaa waxa isugu de waxa ciqaamaha oo dacwad soo furo ka caroonaya qofka dadkiina waa isaga badan qofku maban seexanayo hadaanu qofkii soo xiray marka wasiirkan wax ka carooday bostiga ka carooday ama hadalka ka carooday ilaa qofkii ku yaro hubsado saldhiga oo loo bariyo ilaa dhowr cisho loo bariyo waa xogaa naarsiisama baa ku jira moogtay oo qofkii uu ku yaro xumadaysto waxaad moodaa inaanu waa seexanayn way bal ugu dambeyn waxyaabaha soo kordhay warbaahinta kale waxa kamid ah in warbaahinta inta xafiiskoodii la soo galo la burburiyaba dadna kamaradihii qaaliga ah qalabkiisii waxaas oo dhan hadhowna qofkii wariyaha xitaa marka haddii xorriyadiisa uu dub helaba meel wixii ka bilaaba aanu garanayno qalabkiisii iyo wixiisii oo dhan ay burbursan tayada ka war waa qalad weeyaan warbaahinta guriyahooda iyo meelaha isticmaalaya waa hanti gaar ah dastuurkuna uu mamnuuca hantida gaarka in la iska galo in la burburiyana waa mamnuuca xeerarka dalka iskama geli kartid askarta qaar waxay u haysataa inay because shaar kaakiya bay xiran tahay inay meeshii doonto geli karto waxay dhibaatada inay haysato waxa ka mid ah kitaabka askartu akhrisato iyo kitaabka dalka u yaala isma waafaqsana askariga wax lagu yahay askari baa tahay dawlad baa tahay amar baad qaadataa dalkana adeegka dawladda meel kasta waad geli kartaa wax kasta waad ka shakida waad soo qaban kartaa fikirkaas laga dhaadhiciyay dastuurkana waxa ku qoran ma geli kartid waaran la'aan dadka mobiiladooda ma eegi kartid guryahooda ma geli kartid hantidooda wax ma yeeli kartid waxaan qofkan isaga iskale adiguna kama sarreysid maxkamad ka soo mar haddaad doonaysid guriga guuleedaad gashid saasad dastuurka waxa tahay guuleed dambigaas aan ku haysanaa waxaanu aaminsanahay gurigiisa inuu hubiyaalo maxkamadda waxaan rabnaa inaan soo baadhno maxkamaddu inay waraaq siiso wuxuu xeerarkii leeyahay inaad guriga ku garaacdaa oo taada waanu baadhinaa guriga waxa xeerarkeena ku qoran in dumarka aad sugtaa muddo ay isu asturi karaan waxaan baad ku aragtay booliiskeena xitaa saqda dhexe dadka guriga soo dhici jireen haddaba bay iska daayeen xeerarkeena waxa ku qoran qaabkaas ku qoran marka waa in la iswaafajiyaa waxa booliiska lagu tababaro iyo waxa inoo qoran waxa xitaa xeerka habka ciqaabta kuwaan ka hadlay xilliyada guryaha xitaa la geli karo hadaad waaran haysatid ayaa xeerka xadidaya guriga habeenkii ha gelinba suginta waa gubariyo dadka guryahooda waxa iska soo baadhay haween haday joogan fursad si ay isku asturi karaan dalaqa iska oranina hadda inaga askartiin ilmo yar buu doonayaa la yiri wax soo xaday isagu didiyo guriga isagoo dhex mariyo baad arkaysaa way laakiin waxa ku fiican in tusaale ma jiraan oo askarta laftoodu qaar ama sharciga ugu dhaqmayo ama ilaalinaya ama wax bartayba waa bini aadan oo dad wanaagsan way ku jiraan xagga badan oo baynu ka eegaynaa qaar wanaagsan way ku jiraan oo ixtiraam leh qaar dadaalayo isla dalka u shaqeeyana way ku jiraan iyaga laftoodu waa cadiban yihiin oo kugu wax sidii saacadood ka badan bay shaqeeyaan mushaharka yar bay ku shaqeeyaan ama raal iska siinaya cid ay uga cawdaan male isagoo heerar hargeysa oo Axmed Dagax ku dhasho reerkiisa halkan u degan yahay baa la oranaya cergaaba lagu qoray mushaharka yar la siiyaa isagoo cergaaba ku nool reerkiisa kooy soddonka meedigan uma ba qaybsamo marka cergaaba la geeyay marka uu neerfus noqdaan abti ilaahay isugu timaada Soomaa marka iyagana way si fiican loola dhaqmaa mushaharkooda gurigu meeshuu degan yahay saacadaha uu shaqeynayo maalmaha toddobaadkii ugu yaraan hal maalin waa la fasaxay la rotation bay gelayaan wax stamp 24 hour leh ay ma jirtay hadii tirada ku yartay waa loo koriyaa marka iyagana way si fiican loola dhaqmaa aan la cadibin aan waxaan aaminsanahay askarta kuwa hoos oo dhan dhibaato fara badan baa haysta cadaadiska fara badan ay haystay iyaguna dadka kula sii dhacaya qofku iska caroonay dabcan qaadkuna waa ku dhibaato dalkeena aad loogama hadlay qofka on duty buu ku qayilaya adduunka dhan waxyaabo baa jira dadku isticmaalaan oo drugs laakiin waxa lagu yiraahdaa shaqada markaad ku jirtid lama isticmaalo مثلا هذا الدنيا قلبيت كلنا سو خمرك لا ما عبو دي قف خمرك ku cabiyo police station ama wasaarada ma arki karo markaad gurigaaga tagtid baa lagu oranaya kan isagoo saligii booliska joogo shaqeynaya buu taqsiinsan waana stimulant oo maskaxdiisa way saameynaya qaad anigu have no problem inuu qayirayo laakiin gurigaaga la tag saacadaha shaqada ma qayiri kartid waan lagu yaado marka waxa soo dhan waxyaabo fara badan oo shaqadooda khuseeyo ay tahay in wax laga qabtay galabtigooda oo noloshooda because xal oo dhan baad soo jeeday hakuwa habeenkii shaqeeyo dhan wada qayirsan dad saliga ugu tagtid dulqaad fara badan buu maalin ku raaco xitaa dad dib soo jeegtid in yar buu dul fadhiyo mar rabo inuu inta yar ka dul qaado way aad iyo aad baad mahadsantahay guuleed daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa waraysi dheer oo la yeelanay gariiqan guuleed difaac oo ka waraysanay angala kala duwan oo dhammaantiin islaana wax badan baa ka faa'iido doontaan waraysiga waxaa idin socodsiinaya aniga Axmed Daahir Shaahi TV ayaa kala socoteen aniga iyo gariiqaanka iyo bahda Shaahi TV waxaad geey taginaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh gariiqanaad baad mahadsantahay kaga mahadcelin waqtiga idinka mudan aad iyo aad baad mahadsantahay